bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Qodobada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Chelsea oo shaqada ka erisay tababare Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti oo ka hadlay xaaladda dhaawac Karim Benzema kadib dhaawacii xalay kasoo gaaray kulankii Celtic. Saxiixa cusub ee kooxda Chelsea Dani Zakaria ayaa la barbardhigay halyigii kooxda Arsenal ee Patrick Vieira. Qodobada kale ee barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah tababarayaasha ilaa haatan lala xiriirinayo Chelsea si ay u bedelaan Thomas Tuchel. Bakary Sagna oo magacaabay kooxda Manchester City kula tartami doonta horyaalka English Premier League. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka. Fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe dhasiina share garaysi barnaamijkan asxaab badan u gaaro mahadsanidina. Kooxda Chelsea ayaa xaqiijisay in shaqada ay ka erisay tababare Thomas Tuchel kadib markii kooxda si xun ay ku bilaabatay xilli ciyaareedkan. Chelsea ayaa guuldaro kala kulantay kooxda Dinamo Zagreb kulankii ugu horeeyay ee tartanka Champions League xilli ciyaareedkan. Sidoo kale Chelsea ayaa guud ahaan si xun ku bilaabatay xilli ciyaareedkan horyaalka English Premier League iyo tartanka Champions League. Chelsea ayay ahayd kooxda lacagaha ugu badan gelisay suuqii xagaagan iyadoo milkiilaha cusub uu kooxda si weyn u taageeraya, laakiin Tuchel ayaa natiijo xun ku hogaamiyay kooxda xilli ciyaareedkan. Chelsea ayaa ilaa haatan soo saartay warbixin ay ku xaqiijisay in ay shaqada ka erisay tababaraha reer Germany kadib sida uu ku bilowday xilli ciyaareedkan horyaalka English Premier League iyo tartanka Champions League. Tababaraha kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti oo ka hadlay xaaladda dhaawac ee Karim Benzema kadib kulankii xalay ee kooxdiisa Celtic ay la ciyaartay. Tababaraha kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa fariin niyad-dhisa u diray taageerayaasha kooxda Real Madrid kadib dhaawacii soo gaaray xidiga Karim Benzema kaasi oo dhaawac uga baxay kulankii Celtic ee Champions League. Xidiga reer France Karim Benzema ayaa dhaawacmay kadib 30 daqiiqo markii ay ciyaarta socotay iyadoo lagu bedelay xidiga Eden Hazard. Carlo Ancelotti oo ka hadlay dhaawaca Karim Benzema ayaa yiri dhaawaca uma arko mid walwal ku leh taageerayaasha iyo dhammaan shaqaalaha tababarka ee kooxda, waxaana uu sheegay in ilaa haatan laga sugi doono jawaabta ay keenaan dhaqaatiirta caafimaadka ee kooxda Real Madrid. Dhaawaca Benzema ayaa dhibaato ku ah Real Madrid marka loo eego in Benzema uu yahay laf-dhabarka kooxda Real Madrid isla markaana xidigan muhiim u yahay kulamada ku soo foodleh ee kooxda Real Madrid. Saxiixa cusub ee kooxda Chelsea Dani Zakaria ayaa la barbardhigay halyigii kooxda Arsenal ee Patrick Vieira. Zakaria ayaa maalintii ugu dambeysay ee suuqa kaliibsiga xagaagan kusoo biiray Chelsea isagoo heshiis amaah kaga soo wareegay dhanka Juventus. Xidigan 25 sano jirka ayaa suuqii January ku biiray Juventus ilaa haatan waxa uu ciyaaray 15 kulan kooxda reer Itaaliya. Zakaria ayaa xirfadiisa ciyaareed ka bilaabay dalkiisa Switzerland, waxa uu sanadihii ugu dambeeyay qaab ciyaareed uu ku fiican uu kusoo bandhigay kooxda reer Germany. Adam Owen oo ah tababarihii arkay xidigan Dani Zakaria ayaa amaana ugu qaweeyay xidigan, waxaana uu yiri waxaan aaminsanahay in xidigan uu yahay xidig aad u fiican, wuxuuna leeyahay awood iyo farsamo aad u fiican. Zakaria jir ahaan waa xidig awood leh, wuxuuna ku fiican yahay kubadaha la yaabka leh haddii uu si fiican u ciyaaro lama yaabay ayuu yiri tababaraha xidigan markii hore oo arkay. Weeraryahankii hore Real Madrid, Inter Milan, AC Milan Antonio Cassano ayaa aaminsan in weeraryahanka Manchester City Julian Alvarez uu ka fiican yahay Erling Haaland, isagoo sheegay in xidiga reer Norway uusan ahayn xidig khaas ah. Alvarez oo 22 sano jir ayaa Manchester City kaga soo biiray kooxda River Plate ka hor xilli ciyaareedkan kadib markii uu heshiis 15 milyan ay kula soo wareegtay kooxda Manchester City suuqii January. Weeraryahanka reer Argentina ayaa 3 gool u dhaliyay kooxdiisa Manchester City dhammaan tartamadoo dhan.
Erling Haaland dhanka kale waxa uu Itixaad kaga yimid kooxda Borussia Dortmund adduun lacageed oo gaaraya ilaa 54 milyan bishii Juun waxaana uu dhaliyay 10 gool 6 kulan oo Premier League uu ciyaaray waxaana uu ku jira qaab ciyaareed aad u fiican isagoo ka hadlayay Bubu TV Cassano ayaa isbarbar dhigay labada weeraryahan waxaana uu amaanay Alvarez waxaana uu yiri xidigan Alvarez waa xidig aad u fiican farsamo ahaan waxa uu sheegay inuu yahay xidig aad u fiican inkastoo sidoo kale uu amaanay xidiga Erling Haaland laakiin weeraryahankan ayaa aaminsan in xidiga Manchester City Julian Alvarez uu yahay weeraryahan ka fiican Erling Haaland toobarayaasha ilaa haatan la xiriirinaya Chelsea si ay u bedelaan Thomas Tuchel kooxda Chelsea ayaa saaka ka yaabsatay warbaahinta kubadda cagta kadib markii ay shaqada ay ka erisay toobare Thomas Tuchel kadib guuldaradii Dinamo Zagreb kulankii Champions League Chelsea ayaa shaqada ka erisay Tuchel kadib qaab ciyaareed xun oo kooxda ku bilowday xilli ciyaareedkan guud ahaan kulamada tartanka Champions League iyo kulamada Premier League Blues iyo milkiilaheeda Todd Bowie ayaa bilaabay raadinta toobaraha shaqada ka bedeli doona Tuchel si ay kooxda kulamada kale toobara ay u yeelan lahayd ilaa haatan waxaa jira toobarayaal badan oo lala xiriirinayo Chelsea in ay shaqada ka bedeli doonaan Tuchel toobarayaashaasi waxaa ka mid Graham Potter, Mauricio Pochettino, Brendan Rodgers, Zinedine Zidane iyo Diego Simeone dhammaan toobarayaalkaasi waxay yihiin toobarayaasha lala xiriirinayo kooxda Chelsea ugu dambeyntii Bakary Sagna ayaa magacaabay kooxda Manchester City kula tartami doonta Premier League Bakary Sagna ayaa magacaabay kooxda Manchester City kula tartami doonta Premier League xilli ciyaareedkan isagoo iska indhatiray kooxda Liverpool kadib qaab ciyaareed xun ay ku bilowday xilli ciyaareedkan Manchester City iyo Liverpool ayaa ku tartamayay Premier League xilli ciyaareedkii hore iyadoo sidoo kale horyaalka ay ku tartamayaan 5 sano ee ugu dambeeyay laakiin Liverpool ayaa si xun ku bilowday xilli ciyaareedkan iyagoo kaliya helay 9 dhibcood 6 kulan ay ciyaartay Premier League sidaas daraadeed daaficii hore ee Premier League Sagna ayaana Liverpool oo arkeen mid ay Manchester City kula tartami karta Premier League laakiin Sagna ayaa Arsenal oo arka kooxda Manchester City kula tartami karto Premier League waxaan dareensanahay in Arsenal ay tahay kooxda sida weyn Manchester City ay kula tartami karto tartanka horyaalka English Premier League ma arko koox kale oo ku tartami karta horyaalka Premier League gaar ahaan Liverpool guud ahaan waxay yihiin sanadkan mid aad u liidata kooxda Liverpool guud ahaan waa naga inta barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka fadlan dad ku cusub tahay like noo saar subscribe si share garaysi barnaamijkan asxaab badan u gaaro mahadsanidina